in badan oo aan shilin Soomaaliga isticmaalin haddii alla kuuriyo maanta inay aragto waa jeclahay dawladdeennana waxaan kula talinayaa shilinka Soomaaliga in la soo celiyo la soo sameeyo sababtoo ah qarannimada iyo jiritaanka ummadaha waxa kamid ah inay lacag leeyihiin wadanku hadduusan lacag lahayn qarannimadiisu waa ay kala dhimanta marka shilinkii Soomaaliga in la soo celiyana waan ku talinayaa ilaa hadda waxaan gobol Mareykanka kamid ah dollar kaliya isticmaalna marka gobolada Mareykanka ka tirsanna shilinka Soomaaliga insha Allah in la soo celiyo lagu dadaalo laga shaqeeyo waa ku talinayaa ummadda Soomaaliyeedna Allah u barakeeyo lacagtaan waa duqowdo waa baabaad haddii alla kuurinayaa kumi iyo taano iyo shilin iyo nus iyo 5 shilin iyo 20 shilin iyo 10 shilin 50 shilin 500 kun ay ka koobnayd lacagteenu kunkii yaa ka dambeeyay intii kale waa dhimatay asagana waa taabaan oo sariir u saaray marka haddii alla kuurinayaa in la soo nooleeyo shilinkii Soomaali waa ku taliha halka dollar hadda waa 20 kun soo sidaa ma marka ayada laftirkeedu lama qabato ya in sarifku halka gaaro lama qabato marka haddaan lacag lahayn sidaa ma dhacday